shicibka Soomaaliyeed meel kasta oo dunida joogtaanba waan idin soo salaamaya. Ramadaan Kariim baan idin leeyahay. Jaala Rooble habeen dhaweed wuxuu yiri dagaal baan galayaa kii hore lagaga baxay yaan lagaga bixin. Dagaalkiina uu qaado xildhibaanadii buu ku qaaday. Laba gobol buu target gareeyay. Maamul goboleed buu target gareeyay. Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle xildhibaano ka soo baxay buu target gareeyay. oo dadkoodii soo doorteen qabiilkoodii soo doorteen cuqaashoodii soo doorteen soo abuuruf gareeyeen maamulkii degmada iyo kii gobolka iyo ninkii madaxweynihii gobolkuba maamul goboleedka oo soo seexay oo la soo diro la soo gudbiyay ayuu target gareeyay. oday miskiina oo tabcaana saad u arkayseen oo hadalkiisaba la kala garanayn wuxuu ku hadlay oo marka su'aal weydiiyo tabac aniga garanayo ku dhameynay ana garanayo oo xataa Soomaali garanayn ayuu waa gudoomiye waxa weeyaan doorashada oo shahaadooyin mu bixinaya. odagaasi waa la wareystay waxa la yiri maxaad u target gareyseen raggan a target gareysaa afarta kursi aniga garanayo. We don't care adigu waxaad garanaysay aw sharciga wixii lagu dhiibay sharci ma jiro. roob la shaqeynayo oo tools uu yahay toolska waxa la yiraahdaa waxa wax lagu burburiyo ee lagu jajabiyo ayaa la yiraahdaa tools. dubaha iyo musmaarka iyo machinery wixii wax baabiya tools buu hele roob loo isticmaalo haysto ayuu haysta odagaas tabcaanka. odagani waa beenaale waa ku ileena calatullaahi cala alkaadibiin leeyri waa beenaale waxa la wuxuu ka ogyahay ma jirto wixii loo soo sheegay buu akhriyaya naftiisu been ka sheegaya. timihiisaas waa timo cadaaday una madoobeeyay marxaatiga ma galo qofku xunay hadduu iska dhigo wadaadada hala weydiiyo marxaatiga xataa ma galayo timihiisiibuu iyuu madoobeeyay cadaabu madoobeeyay. ninkani wuxuu iibin jiray duurjoogta ayuu gobolada bari iibin jiru dubay iyo dhulka geyn jiray. waa khaayin dambiile weeye dalkan qaranka wuxuu ka galay dambi in la qabto la xidho weeyaan in lagu aamino ma xildhibaano iyo inuu shahaadooyin bixiyo. waxa dhacday shahaadooyinkii baa qiimo beelay xildhibaanadeennii buu sharafta ka qaaday waa la baafinaya telefishinka laga baafinaya xildhibaano kaalaya telefoonna loo diraya diyaaradaha lagu soo qaadaya waa xildhibaanadii iman lahaayee sharaftiya karaamada lahaa isagaa baafinaya meel buu fadhiyaa oo ku baafinaya xildhibaanadii. islaantii frimbiga sidanaysay iyo kii kale frimbi kuwii baa mikrofon loo dhiibay oo xildhibaanadii baafinaya. marka waxaan leenahay jaala Rooblow nin baa waashay Rooblow nin baa reer madax u ahaa reerkiisa maamulayay markii dambe uu waashay markuu waashana uu carro dharkii buu daadiyay. islaantiisii iyo carruurtiisii iyo sodog dadku ahaa qoyskiisii baa daba yaacay maraday la daba ordayaan si ay ugu xidhaan isaguna maradan uu diidaya oo ka cararaya maamulkii reerkiisu ku waashay. annagu waxaan kula Rooblow waad waaratay annagu sharaftii baan kula daba ordaynaa wax kale maaha waad waaratay qabiil baa ku waalay boobnima ku wanaad wax boobtaa ku waalay wadamo shisheeyaa ku waalay jilibkii adigu aad la dhalay qoyskaagii baa ku waalay oo kale waxa samee farmaajo dagaal ku qaad Fahad Yaasin dagaal ku qaad 100 target bay ku sameeyeen waad isku dhex yaacday. annagu sharaftii baan ku ilaalinaynaa maradii baa ka dhacday waad naga baxsato adiga Kenya tagay waadiga ugu rakiinaya salaaxay ee dharka u xidhay kolba waad baxsanaysaa. annagu waa sharaftii waxaan kula daba ordaynaa qarannimadii Soomaaliyeed baan kula daba ordaynaa midnimadii waxaan kula daba ordaynaa karaamadii Soomaaliyeed sharaftaadii adoo prime ministerkii Soomaaliyeed oo tay xidhan inaad noqotaan doonaynaa. wuxuu ku keenay farmaajo adigoo tay xidhan oo aamusan oo tusbaxsid ayuu ku keenay oo nadiifa maantana adigoo wasakhaysan baad ka tagaysaa ceeb baad dhex fadhiisatay dagaal aanad ku guuleysanayn baad gashay dagaal qabiil baad gashay qabiiladu way islaayeen laakiin way heshiiyeen wali adiga way heshiiyeen cidi kuma sheegin hal lagu sheegay qabiiladii inay heshiiyeen oo walaaloobeen oo qarannimo doorteen oo Soomaalinimo doorteen oo midnimo doorteen hal lagu sheego hana lagu dhaarto
hana lagugu dhaarto dagaal aanad ku guulaysanayn baad galaysaa farmaajaan dagaal la galaya farmaajo iyaan dagaal la galay fahad yaasiin baan dagaal la galaya lama geli kartid qofka dagaal sharci baa ummadda kala wada dunidan arkayso sharci baa kala wada sharciga cidna kama sarrayso farmaajahana dagaal baan la galayaa leedahay garab gala waa kii ku keenay adiga isagaa ku keenay adiga isagaa prime minister kaa dhigay isagaa makhaayadii kaa soo kaxeeyey isagaa mishaar kuu qoray isagaa soomaalinimo kuu dhiibo kugu aaminay kii baad dagaal ku haysaa qabiilkiisii baad dagaal ku haysaa qabiilkii fahad yaasiin baad dagaal ku haysaa wax alla waxaan jilibkaaga ahayn baad dagaal ku haysaa 6 ninood albaadeer tihiin faamil hoose tihiin ayaa kula talinayoo ku waalay waxaa ku leeyahay war marada xidho aan kula daba ordayno maradii baad ka tagtay oo sharaftii baad ka tagtay waad isqaawisay annagu marada xidhaan kulayno waxba kaama rabno annaga soomaalinimaana deeqda sharaf baana deeqda karaamad baana deeqda dowladnimo soomaaliyeed baana deeqaysa annagu farmaajo isku qolama nihin qarankaan isku qolannahay dowladdaan isku qolannahay sharaftaan isku qolannahay karaamadaan isku qolannahay soomaalinimo ayaan isku qolannahay annagu ninkii wadayaan isku qolanoo dadka naga xiga ninka soomaalinimo rabay annaga dadka naga xiga ninka soomaalinimo iyo sharaf iyo karaamad iyo dowlad iyo haybad wada ayaa annaga dadka naga xiga tuug xadaya dalkii oo dhaqaalihii guranaya oo guryihii boobaya oo meel walba boobaya annaga kaa wanaagsan baa naga xigoon dooranayna waad ceebowday rooblow wax ku hadhaan u garan maayo intaasaan ku odhanayaa rooblow adiga marada xidho oo waa bir rabadaane wixii aad dhibaato geysatana soomaali cafis weydiiso qarankani sanad iyo bar baad hor joogtay ood qarannimada soomaaliyeed hor joogtay oo dowladnimada hor joogtay oo rufiiq balaayo oo dhan u soo raacday wax alla wixii soomaali necab oo dhan u soo horkacday ilaahay cafis weydiiso ummadda soomaaliyeedna cafis weydiiso oo adigoo nadiifa meesha ka tag oo soomaali cafis weydiistay taariikhdaasi ku qori doonta adiga anugu garan maayo meeshaad ku noolaan doonto haddaad kursigaa ka kacdo meeshaad ku noolaan doonto ma garanayo waxaa kaloo rabaa inaan la hadlo reer ged qolada la ydhaha gado intaan la hadlo waxaan rabaa koonfur galbeed reer koonfur galbeed soomaali baad tihiin soomaali sharaf badan oo karaamad badan oo wanaagsan baad tihiin madaxweynihiinu waan idin hambalyaynaynaa qof kastoo soomaalinimo jecel oo qarannimo jecel oo dowladnimo jecel ba waan hambalyaynaynaa hambalyaanu idiin soo diraynaa 2 qof amba 3 qof hadday idin khilaafaan oo dabadhilif noqdaan oo hunguri doontaan oo lacag lagu kaxeeyo oo reeraha kale u tagaan waxba ma noqonaysaan weligeedba waa la helaa rufiyaanku meel walba uu jooga dabadhilifku meel uu ka maqan yahay ma jiro solid baatiini halkaa ka sii wada qarannimada soomaaliyeed ku dadaala dowladnimada soomaaliyeed ku dadaala xildhibaanadii waad aragtaan halka ay marayaan xaaladoodii ha ku biirina kuwa bilaa sharafta noqday ha ku biirina ee bilaa karaamada noqday oo odaygaa aad moodo qambaarka u eeg ee madaxa madoobaysta halkaa soo fadhiyo ushaadooyinkii dadka la barayaya dadka la baafinayo idaacadaha laga baafinayo ha tegina wax idaacad laga baafinayo idinkoo sharaf iyo karaamadoo VIP oo 5 star ku imanaya ayaad imanaysaan oo shahaadooyinkiina ku qaadanaysaan waxaan rabaa 2 kalmadood aan reer gadow idhaahdo reer gadow meydka waa loo taliyaa meydka halka lagu aasayo goorta la maydhaayo goorta lagu tukanayo iyo baabuurka lagu qaadayaba dadka yaa go'aan ka gaadha meydka isagu go'aan male qofka hadduu dhinto reer gadow meyd ma tiidina ma rooblaad ka sugaysaan wanaag idinku oo idinkula jira dagaal ayaad ka sugaysaan wanaag ood wax ka sugaysaan madaxweyne farmaajo waa mareexaan laakiin waa madaxweyne soomaaliyeed waxba idinkama gelin hawshiin iyo danihiinna qabsada qalbi madoobaad ka sugaysaan ninkii dhuxulaysta ayaad ka sugaysaan ee kenya jaajuuska u ahaa kenya lacagta ka qaata ee qaranka soomaaliyeed hor jooga ee idinka idin neceb nin idinka idin necba ka sugina nin idinka idin neceb waxba ka sugina dantiinna qabsada meel istaag oo wax noqda waxbaa tihiinay wax dambe ha sugina doorashadii qabsada wax noqda muuqda soo baxa meel joogsada oo soomaali qolo walba way la soo baxday xildhibaankeedii idinkuna xildhibaanadiinni soo saara ha sugina baahane iyo hebel madoobe midna qalbi madoobe ha sugina
ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida joogtaanba waan idin soo salaamaya xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed la soo doortay meel kasta waa ka yimaadeen war sharaftiina ilaaliya ha gumoobina hoostagina baahane sharaftiinni waa ka kala qaybiyey koox uu idin kala qaybiyey oo aniga arkay habartii filimbiga sidatay iyo mikrofon loo dhiibay waa la idin baafinaya ma tuug baatiin saa la idin baafini maana protocol iyo nidaam iyo system jirin saa la idinka baafiya telefishinada la idinka baafiya war karaamo yeesho wax noqda oo yaanu baahan idin lugoyn aad baan idin salaamaya